كينان استنى ها ها استنى ها ها استنى ها ها Mtu wa watu Keinan, bunge anatutetea Keinan, maendeleo amezileta Keinan, barabara amejenga Keinan, sasa usafiri sio shida elders, usalama ameleta, daraja amejenga, anajali watu wake Keinan. عطسية كينان كينان حلطرت كينان كينان مدحوية كينان كينان مرة بعد استغى ها ها مرة بعد استغى ها ها استغى ها ها Sio mtu wa kitina Keinan, ameleta maji safi elders, anamcha Mungu Keinan, ameingia kwenye ngozi atufai, hajawahi usika in corruption, tumchague tena Keinan. Ukienda kumwona Keinan utoki na shida walai, ukienda kumwona Keinan utoki na shida walai. عطسية كينان كينان حلطرت كينان كينان مدحوية كينان كينان مرة بعد استغى ها ها مرة بعد استغى ها ها استغى ها ها Stima ameweka Keinan, ameondoa giza kubwa elders, watoto amefunza Keinan, maji soko ameleta Keinan, basari amepea na hospitali amejenga, kajaza pia madawa Keinan. Wazee na vijana na wazee wa mikoa na wasituchague Keinan, wazee na vijana na wazee wa mikoa na wasituchague Keinan. عطسية كينان كينان حلطرت كينان كينان مدحوية كينان كينان مرة بعد استغى ها ها مرة بعد استغى ها ها استغى ها ها يا كينان كينان حلطرت كينان كينان مدحوية كينان كينان ما أنتوا مال خير قبتوه سبب تهذا lacag baasir oo dadkii maaragtay waxa rafaasan yahay team ilmo badan oo iskuul laga fiijilay lacagta maanta taamkan u baxay maxshmiya waa maxsanta waa sugsantiin abaar xumaa la soo maray waqtiga hore xooli waa yaraadeen fiya meel laga gaari lahay waqtiga ay ku habooneed baasir ku soo toosay thank you very much waa maxsanta taas waa kugu mahadin waa maxsantahay waa kugu mahadcelin waxa kala dhufishinki secondary waxa kalena waxaynu maynaa as adag ku dhawaaqday inay baaqinayna umayna primary tula ka soo bilaw secondary ku xiji margo Harun tanshub xafiiska jifka maarta madrasada maarta bigbigiyalki maarta masaajidka gogasha loo keenay wax kasto adag qabatay mooge hal xabad oo kale tula lagu mudiri horta saab ku dhufto horta Keinan uma daciye ilaa maanta iskale maxshma kariimo arrintan oo maanta ka dhacday meeshan oo lagu loojigareynay baasiriga waa ku mahadsan tahay maxshma adiga iyo maartay wixii maartay dhinaca dawladda nooga imaadiba marka waxaan warkayda ma gaan badna waxaan leeyahay waa mahadsan tahay boqolkiiba waa boqol abaara la soo maray dadka waa baqaayeen ilmihiina la soo fiijin doonaa see wax noqon doonaan la lahay laakiin murugti ideed waalidkii waaday konsensigaan oo dhamaala ceeldaas konsensi oo dhamaala midda labaad waanu malaynaa meeshan wax badan aan ka istaagnoon dhahnay maxshumu biya aaway wax badan kollay intaan ka istaagnay konton goor waa dhantoon biya aaway dhahnay adna ceelal fara badan aad qortood biyo ka weysay khayr Allah ku siiyay meel fogaas ka soo jeeday biyi hadda barga aqal heblaay ma tagini buulo heblaay ay ku yar yihiin ay mari haysa anina codsiga odayaashan aan xoojina in buulada iideedo ay tagina as u geysa khayr Allah ku siiya codsigaygaan ku dara xalfadan oo tula secondary lagu dhigaya basari launching waa ku maasantiin daafurkaas ka damba umaysmo waa maasantahay waxa lagu sheegaa mid nin ugu banamtid wixii tula ka qabatay waa ogson tahay tula secondary ma jirin ilaahay ka soo kaada keenay waa ku maasantahay mid maanta waxa noo dhiman tula secondary ma jiraan waan si hadda ka muuqata baasir hadduu noo keeno khayr Allah siiya waxaas ogyahay asaga soqon u leeyahay aan xasuusinaynaa oo ku adkaynaynaa kulleeyta waalid wax dhiba hadaa jira waa school fees wax ka dhib badan
ma jiraan waxay la foolanay wasaasiga waa school fees iyo basariga taasna khayr Allah kusoo ku maadaynaa kuna dadaal aadankeena waa fulin waa dhamaatay basar ma bixiyana waa dhamaatay bishmuha basar qiimo badan aad bixisay xisaab weyn aad bixisay markaan sheekada aadankeena basar ma bixi maanta ay dhamaatay markaan midda kale oo codsanaani waxa waaye bishmuha sidii wajaha school iyo sabunley iyo wajar girls iskuulaha kale la fiis ma aha sababtoo waa national schools marka waxaan codsanahay ilmaha basri marka la siinaa ilmaha wajaha school iyo sabun aadankeena qabta mooga aadankeena waxa u galnay in malayn magaaniin maalay laakiin barkatii waa ka bedelanta Soomaa استغفر إذا كنت سوما مجموعة هذا الملحين هذا الميلاد بنيسنا سوما لكن أمان هذا كسي بدن من نقطعه قفنا ما نينبوا ولا سواي تاسوا كفتن تلا وما هتسنتي بقول كذا بقول مجموعة هذا كائنان لبلا بهولنك أقلك وعلور تلا ماشي عم برجع أنتوا حلوين مضامينا فرحة والله إماضي هنا باسر الدي أي منطقة تاينول منافلة تركيه الرين وكهالي وحما هاتسن إلهي جوينا أود لا ما هاتسن باش عن وقت دير على صوب الله ونمر علينا بحجمها هذا أمها هاتسن تاي هذا أمها هاتسن تاي وعاكلوا ما هاتسن ومهد مدن تيم كسي دي اف أو أنت أنا سوق قبطي أو محجمها كوسو سمي هذا كان هذا أمها سنتين غير الله ينسيه وحوا قبت ما قبلوا لو دودي ما انت اسكول كان دح تاغنه والله فرا مرق مرغنا قبنيس ما انت الهي بحسن بيسي ويا عين ريتك قلقلان الحمد لله شكر لله الهي كسكو نمبا كاني بقولك بقول واد ما حدسنتahay انت كلنا ادون بان كا سوغينا مد كلا اون ما جيرا مجان oo waa naga soo bixis ilaahay naga soo bixi eed baad noogu soo bixis wadadaashi raadkaada raadka korreey ma jiro meeshan inaan been isu sheegna maaha raadkiisa ada suubis raadka korreey ma laha hadaas dir lay waa soo bixi lahay inaan isu maarad is farfeerina ma aha maxuumooga eedas u mahadsanyahay gacanta ilaahay hala jira wixin ka tawanayna waa soo wada wadkeeni xali iyo habeen hor iskuul waa la fur murugan la saacan weyne maamayalka daanan murugta aan la saacan weyne waxa iskuul waa la furay ilmaan marka la soo fiijiyo musaygu ma imaadayn waxa la soo kurtuurna maamayalka fiisa noola soo fiijiyo murugteed waan haysa meel aan wax ka bilan waa garan leen laakiin marka la dhahay waxa la furaa maanta baasri xarga laga jira xal farxa maxabal saaxan weyn saaran xirna xal farxa u gisgale Nairobi Mombasa Kisumu inta la keen wajeer marka waxa la rabaa inaad ka faa'iideysatiin aadan keenan shaqo weyn ayaad qabtay 41 million shilling waxa way lacag badan 41 million shillings waxa way lacag badan waa lacag u maleynaya in lagu daydo constituencyalka kala ay yihiin aadan ma aha nin oo siyaasad waqti dhow soo galay waa ninka ilaahay aad nasiib u siiyay in laba constituency as ka noqdo MP marka waana nin 20 sano misbaaba 30 ya 30 sano member of parliament ah marka ninkan waxa waaye ninkii dadkan dagoodiya iyo wajeer dhamaala ay hooskiis ay maaragtay ay degi lahayd marka waxa la rabaa inaad ka weynaada tula iyo bacaashay iyo reer jirow iyo sheekadaas ya somo anaga oo maanta waqtiga iskuulka la furay taariikh 29 murug weyn ayna haysa haddii aan ahnay principalyaalkii aan ahnay waxaan zaid ugu faraxnay maanta waqtiga aad muxshimo aadan keenan aad ku dhawaaqay baasariga maanta horta waa farax weyn waalidkana waa inay ku farxaan sida waalidka ay u waswaasanaayeen oo murug u haysay ilmahooda ugu waswaasanaayeen anagana xafiisaha gabdhaha ku oyna oo abo cunuga iqaad san iyeel murugti muxshimo keenan the bursary you have paid today or you have given is timely and we thank you for that. Mashaallah. Sisi tumekuja hapa kusindikiza mheshimiwa ili launch hii bursary.
Tumekuja na machifu hapa, wote mnawajua, mmewaona. Chief mali muko atachukua mkono hata kama uonekani huko, ili kuona ya kwamba mheshimiwa hii check amefikisha. Mheshimiwa, wakati mtihani unafanyika, unakuta watoto wamefanya mtihani, kuna wale wanaenda shule na kuna wale hawaendi shule sababu ya ukosefu wa school fees. Na hapo sasa ndio serikali inaambia chiefs, inaambia national administration tufanye ile kitu tunaita 100% transition, kwenda kwa kila nyumba na kuambia mzazi apeleke mtoto shule. Lakini shida inakuwa ya kwamba huyo mzazi labda ajiwezi na mtoto tunamsukuma tu kwenda shule. Wakati waxaan maanta aan mahad weyn u celinayaa ilaahay halkan iskugu kan keenay. Waa ogsoontihiin tacliinta qayb weyn bay ka qaadataa horumarka waddankeena. Run ahaantii muddo dheer baan qaadanay, waxaan fiirinaynay dadka soo qortay maadaama dad badan ay soo qorteen halka. Dadka jaamacadda soo qorteen ilaa iyo sida lii sheegay intaasoo kun bay ahayn. inaan qof kasta oo wax soo qortay oo ka doonaya halka kaalmo inaan magaciisa raadino, meeshuu ku galbanaya inaan ogaano, sidii dadkii lacagtan maxay lacagta sidaa loo sheegaa way badan tahay, laakiin haddii la dhaha ardadii halka soo qorteen siima badna. marka waxaan ku tirigalnay dadka ka faa'iidi doona inay noqdaan dad ama ceeldhaas ka codeeyeen ama kibaanada ceeldhaas ka goosteen ama hadday codeynin waalidkooda ku abtirsan kara inay ceeldhaas yihiin. waxaan rabnaa iskuulihii hore kuddi inaan bagna, iskuul kasta asagoo taylkiisa qaba, deeskiisa qaba, laboratorygiisa qaba, macallimiintiisa haysta inay jiraan oo iskuul wax kasta laga heli karo inay noqdaan. tii ma dhici karta marka safarad kasta wadaan iskuul cusub bilaawno. Kwa hivyo safari mpango yetu hatutaanzisha shule nyingi, hapana. Tutaendelea kurekebisha na kupanga zile shule ziko, ili kila shule iwe na vifaa ya kutosha, ili wewe ukienda Tulatula Primary School unafurahia mpangilio, unafurahia mahali pa masomo na unafurahia ile environment dharura ya kusoma. Hivyo ndio lengo yetu. Kwa hivyo zile ambaye imebaki, najua kuna sehemu meel laga hadlaya jira, waan fahansana, waan fadhiisanaynaa. safartaan waxaa la dhahaa wax public participation, inaan anag meesha iska fadhiisana sidaan yeela male. waa in imaadaynaa listidii dhalinyaradii wale wasoomi ay noo dhiibeen waan haynaa. waan in imaadaynaa, waxaan leenaha bal idinka dadweynihi haddaad tihiin maxaa in liin qabta sanadkan lacagta dawladdaas doonaysiin. hadda sitimaas dhahdeen, sitima priority aan gelinaynaa. wixii kala si wixii qofka MP-ga ama ay dawlad ay madaxda qabani wax dadweynaha dhan ay ka warqabaan ay u yihiin. soo saas kuma wanaagsana. marka waxaa kusoo kordhami doona cudur asagana contract la dhaha, kaas waqtigiisa laga hadlay waqtiga la gaara. laakiin hadda dadweyne wuxuu isu keenaa qaybtaas waa suubinaynaa. program aan gabdhaha leenahay jir waqti dhawaan soo banaanka keeni doona ilaahay hadduu yiraa. maxaa yeelay runtii hadda naxariis gabdhaha ay kusoo hirtay. dhalinyarada iskuulka marka waa sida hadda gabadhi sheegaysa Maama Cabdiya, qofka qoryaha soo gura, qofka biyaha keeni, qofka dusha ku xambaarsan, qofka lagu soo oyno hooyo ay noqoto. hooyo dhinka waxaan in sheegi gabdhaha iyo wiilasha iskuulka isku sida u geeya. waa maqlaysiin somo allah waclantii ku anfici doonto. soo saas ma weliba hatta naxariis waxay ku soo hortay ogow gabdhaha. yaa wiilkii soo wareegaa dhici karta marka aan leendhiin gabadha qorya ay soo guri ama ergay raace. waxaa nasiib xumo ah adigoo magaalo jooga cunugaadin aan iskuul geynayn. baadiyi waa ka soo tagtay, xoolihii way dhamaadeen, wax kaloo jira ma laha, cunugaadin iskuul ma geynaysa. meeqa khasaare waay? soo laba khasaare maaha. sisi tutatimiza na tutaenforce gabdhaha yaryar ilaa ay ka baaliqaan, iskuul ay ka dhameeyaan, aan la guursanin. gabdhaha la dhaafo iskuul barteene, gabdhaha iskuul barteene aan loo dhaafo iskuul. gabadhii iskuul la geeya ilaa ay form 4 tagta, saadayda ay dhamayso, form 4 ay tagta, jaamacad ay gasha, faraha lagala baxa. sidaas keli waxay ku noqon kartaa qof asaga uu soo istaago daniisu istaaga. markaas ay ku noqonay gabar habaysan, tacliin leh, xoogoo jeebkaas u buuxo, quraankii soo baratay, waa ku anfici, hooyadeedna waa anfici. maxaan ka hadlayaa gabdhaha dhexdaan loo istaagin, gabdhaha dhexdaan loo istaagin, iskuulka dhamaysta. waxaan leenaha dhulkii waxaa ka dhacay roob weyn,
oo nimcada ilaahay ay ka mid tahay jidadkii way xirmeen dad badan baa naftoodii ku waayay gaariyaal badan baa ku dhaceen waxaan dawladda weydiisanaynaa horta arrimahaas oo biyahaas ay keeneen dhibaatooyinka inay dawladda ka hortagta taana waxaa looga hortagi karaa jidadkii oo la hagaajiya dadkii oo daawo loo keena iyo dadkii oo nafaqo cunto loo keena waxaa kaloo dawladda ka codsanay maadaama ay biyahan hadda badi dhulkan soo maray ay ka imaadaan dhinaca Bute warti weyneed oo looga talagalay Bute because wartaasna wajeer dhana iska leh inay dawladda sida ugu dhaqso badan dhismadeedii iyo dhamaashadeedii ay dawladda ay dhaqso ku subisa si biyahan badan dhulkan badan soo taraara meeshiideed looga